kulanti wanaagsan daawadayaal muuqaalkan waxaan ku falaqaynaynaa doodo xoogan oo ka taagan shirka mucaaradka iyo muxaafadka ee Soomaaliland ee markaasi ka dhacaya Abu Dhabi dalka Imaaraadka Carabta. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu warqad furan u diray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka taasoo ku saabsan arrinta Soomaaliland. dawladda Soomaaliya waxay kireysatay shirkad oo Trump share ku leeyahay waxaana arrintaas ay qusaysaa laba qodob oo waaweyn oo mido ay taarinta Soomaaliland. Trumpna wuxuu ku dhawaaqay 1 milyan oo ruux oo 4,000 oo Soomaali ay ku jiraan inuu ka soo tarxiili doono dalka Mareykanka. afartan qodob ayaan ku falaqay doonaa. qodobka koobaad safarkii madaxweyne Ciro ee Imaaraadka iyo sidoo kale socdaalkii ka dambeeyay Muuse Biixi madaxweynihii hore Soomaaliland ayaan ku bilaabaya. daawadayaal maalin ka hor magaalada Hargeysa waxa ka baxay madaxweyne Ciro. dulbadiiba qayladaan xoogan ayay bilaabeen mucaaradka Soomaaliland oo ay ku doodayaan waa madaxweynihii Soomaaliland. arrintaas ma ahan mid sax ah marka dhinaca kale laga fiiriyo sababtay tahay Ciro safarkiisa iyo socdaalka uu ugu baxay dibadda waxa uu ahaa kii ugu horreeyay uga baxay Hargeysa. marka koobaad xogta aan ka hayno iyo sidaan ula socono safarka Ciro bilowgii madaxweyne Ciro markii uu baxay waxa uu aaday jeekin ku saabsan arrinta caafimaadkiisa. sababtay tahay doorasho galay dagaal la soo galay muddo soconayay yacni qof intaasoo crisis ka soo baxana bilowgaba markii uu tago dhakhtarkiisa markii uu tago waxa uu maraa waa jeekin caafimaad jireed iyo maskaxiyan. sababtay tahay nin doorashada ogeed ka soo baxay tan iyo intay doorashadu dhacday wixii ka dambeeyana magacaabis iyo xilka qaadis ku howlana dee waa dareemi kartaan xaaladdu siday tahay. waa inuu helaa marka 2 maalmood oo jeekina. labadii maalmood ee jeekinka uu maray madaxweyne Ciro waxa qayladaan bilaabay mucaaradka kulmiy oo fadhigooda iyo Hargeysa. waxay ku doodayaan in madaxweyne la waalala yahay sida daraadeed la baadi goobay. xitaa wararka qaar oo warsuuqeedka ee baraha lagu daabacay warbaahintu ay qaada dhigaysi waxa kamid ah in la yiri madaxweyne i'tiraaf ayuu raadiyay isaga hal raadiyo miyaa la yiri hadda oo Muuse isaga raadinay. arrimaha la yaab kala weeyaan taasi waa faahfaahin guud. madaxweynuhu jeekin uu marayay iyo arrimo caafimaad way dhinaca kale aynu eegna marka shirku muxuu yahay sida ay ku soo baxayaan xogaha xukuumadda madaxweyne Ciro. shirkan waa shir 3 ujeedo leh bilowgan waa faahfaahinay. Muuse Biixi isagu waxa uu sheegay in arrimo qaas ah uu u baxay laakiin arrimo qaas uu u baxo waa sax laakiin shirarkan inuu ka qayb galo ayuu qorshuhu yahay. mid horaan u sheegno mar raba inuu ku laabto oo waa arrinta Trump iyo sidoo kale rabitaanka Soomaaliland. taasi waa qodob. hadda marka maxaa cusub oo ku soo kordhay ilaan daahir riyaala loo yeero Faransiiska ku sugnaa Muuse loo yeero Hargeysa ku sugnaa mid waa dhaqaale ayaa la leeyahay oo dhaqaale xoogan ayaa ku maqneed xukuumaddii Muuse 7 sano ee xukunka ay joogtay oo yacni Ciro uu doonayo in xitaa leesla koro sharciga. lacagahaas sida loo maareeyay meelahay ku baxeen iyo yacni in xukuumadda Ciro waxay qaadatay dukumeentiyo ayaa la leeyahay ku saabsan arrintan maadaama qasnada maran ay la wareegtay. taasi waa qodob. qodobka labaad sidan xogta ku hayno suldaanka uu helayo shirarka dhici doona waxa ku jira la leeyahay waajihada iyo sidoo kale qiblada la aadayo ee ku saabsan Soomaaliland maadaama ninkan 3 casuumaad oo ka kala helay Itoobiya, Djibouti iyo sidoo kale ee Imaaraadka Carabta. qorshihiisii koobaadna wuxuu ka dhigay Imaaraadka Carabta isagoo doonaya haddii Itoobiya uu aado iyo haddii Djibouti uu aado xasaasiyadda ka dhalan karta iyo sidoo kale culayska uu kala kulmi karo. waxa hadda marka la leeyahay sidaan warbixinta aan ku hayno madaxweyne Ciro qorshihiisu waa in albaabada loo furo arrinta Soomaaliland. warar kale waxay sheegayaan inuu ku xiji doono safarkiisa labaad oo Djibouti iyo Itoobiya midoodu noqon doono casuumaadda maadaama uu haysto wali ma soo mari doono ama toos ayuu u aadi doonaa mase Hargeysa ku soo laaban doona waa dood kale. laakiin xogu waxay tibaaxayaan madaxweyne Ciro inuu doonayo arrimaha geeska oo culays weyn uu ka jiro iyo sidoo kale rabitaanka Imaaraadka Carabta oo ay riixayaan dalal waaweyn inay ka dhabeeyaan qorshahooda ku saabsan Berbera
dhismaha garoonka cigaal iyo sidoo kale heshiisyo kaloo waaweyn oo la soo galay inkastoo xukuumaddu faahfaahin kooban oo afayeenka madaxweyne Cirro uu bartiisa Twitterka ku qoray masarciga uu ku sheegay arrimaha horumarinta inuu u aaday Imaaraadka wax dhaafsiisanaysan ku xusnayn warbixintiisa safarkan wuxuu muujinayaa isbeddelka jihada siyaasadda ee arrimaha dibadda ee xukuumadda cusub ee Cirro maadaama uu markaasi doortay inuu booqashadiisa ugu horreysa ku tago Imaaraadka Carabta halkii laga filayay dalalka diriska inuu tago madaxweyne Cirro ayaa la filayaa inuu la kulmo hoggaanka Imaaraadka Carabta iyo jaaliyadda ku sugan markaasi Dubai iyo sidoo kale Abu Dhabi oo socdaalo uu ku mari doono siday xaqiijinayaan wararku inta uu ku sugan yahay ayuu sidoo kale wuxuu kulamo kala duwan la yeelan doonaa dhinacyo kala duwan oo qaarkood uu la kulmo ayaa leh waaya Muuse marka maxaa looga maarmi waayay xukuumadda Muuse uu hogaaminayay waa xukuumaddii hore ayaa leeyahay eeda badan ayaa dul hoganaya inuu eedahaasi iska meerina uu doonayaa Muuse Biixi wallow isagu uu bogiisa ku shaaciyay inuusan arrimihiisa yihiin arrimo gaar haddana xogaha hoose ayaa waxay sheegayaan sida aan u tabanayn waaya taasina waa qodob kale oo suurtagal ka dhigaya isbedelo inay dhici doonaan waa hagaag isla wararkaas warar u dhow madaxweyne Geelle muxuu warqadda furan ugu diray dawladda Mareykanka walaaca uu qaba samuxuuye sida aad la wada socotaan daawadayaal madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la leeyahay xogayaha arrimaha dibadda ee cusub ee la magacaabay Marco ayuu u diray warqad ku wajahan Soomaaliland sababtana wuxuu ku sheegay uu cuskaday inaysan suurtagal ahayn in Mareykanku go'aanka uu qaadanayo arrimaha Djibouti maadaama ay saameyn ku yeelan doonaan inay noqdaan kuwa loo soo maro rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Djibouti waa sida ku xusan warbixinta lagu sheegay madaxweyne Geelle waxa laga soo xigtay inuu si weyn ula dagaalamayo in Mareykanku qaado talaabo ku wajahan Soomaaliland oo uu aaminsan yahay saameyntii Djibouti ay ku lahayd geeska Afrika iyo saameyntii Mareykanku ku lahaa Djibouti iyo saldhigii weynaa in laga wareeji doono haddii Mareykanku uu qaado talaabo ku wajahan Soomaaliland Djibouti waxay ka cararaysaa go'doonkaas ayaana ah mid Geelle geed dheer iyo mid gaaban u fuulay haddii Trump uu qaato go'aankaas waxa la leeyahay Ethiopia iyo dalal kale oo dirisa ayaa ku raaci doona oo ku taageeri doona waana mid ay ka cararayso xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle warqadda ayaa asal lagu xusaalay qodob xasaasi oo dhigaya inay suurtagal ahayn marnaba in dawladda Mareykanku ay qaadato go'aan noocaas maadaama hadal hayn xoogan ay ka jirta muddooyinkan sida ay xusayaan wararka soo baxay dhinaca kale isla dawladda dhexe Soomaaliya ayaa wada qorshe kale oo culus dawladda Soomaaliya 600 oo kun oo dollar ayay ku kireysatay shirkad xiriir la leh madaxweyne Trump oo wararka qaar bay sheegeen inuu xitaa shir ku leh dawladda Soomaaliya ayaana talaabadan u qaaday laba ujeedo waaweyn mid waa arrinta Soomaaliland midda labaadna waa ciidanka Africom ee Mareykanka ee jooga Soomaaliya dawladda dhexe Soomaaliya ayaa heshiiskan la gashay shirkadda lagu magacaabo BGR Group oo shirkad caan ah oo ku taala Washington una ololeysadana dawladda si ay ugu ololeyso si socoshada taageerada militariga ee Mareykanka ee ku aadan dagaalka ka dhanka kooxaha xag jirka ee argagixisada iyo midnimada Soomaaliya talaabadan ayaa muujinaysa walaaca sii kordhaya ee la xiriira isbeddelka markaasi imaan kara ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo kaalinta muhiimka ah oo ay markaasi kaalmada Mareykanku ay ka qaadato dadaalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya heshiiskan oo socod doona muddo hal sano ah isla markaana ku kacaya 600 oo kun oo dollar ayaa bishii December ee sanadkii tagay waxa si wada jira u kala saxiixay safiirka Soomaaliya Mareykanka Daahir Carab iyo shirkadda BGR Group oo xiriir la leh hoggaanka xisbiga Jamhuuriga iyo saraakiil ka tirsan Mareykanka oo hore shirkadda BGR Group oo si wada jira u aas-aasay gudoomiye hore ee ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo shakhsi caan ah kana tirsan kooxda Trump oo hadda xulanayo ayaa waxa ka howlgala la taliyaal caan ah oo uu ku jiro nin lagu magacaabo Tom Locke oo horay
u soo noqday ku-xigeenka kaaliyaha agaasima FBI da Maraykanka. Khibradda ay shirkadani u leedahay la macaamilka dhinacyada siyaasadeed ee Maraykanka ayaa la filayaa inay kor u qaado dadaalada u ololaynta Soomaaliya ay ka wada aqalka Koongareeska ee Maraykanka ee maamulka Trump. Ku tiirsanaanta Soomaaliya ee taageerada militariga Maraykanka ayaana si aad u korortay waayihii dambe, gaar ahaan dagaalka lagula jira kooxda Shabaab. Kooxdan midigta markaasi ah ee xiriirka la Al-Qaacida ayaa in ka badan 10 sano ka wada gudaha Soomaaliya kacdoon arxan daran. duqeymaha cirka Maraykanka ee isweydaarsiga xogaha sirdoonada tababaritaanka ciidanka Soomaaliya ayaa door laf dhabar ka qaatay wiiqitaanka awoodda kooxdan. Ka qaybgalka militariga Maraykanka ee arrimaha Soomaaliya ayaa maray heer kala duwan. Bishii December madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden waa madaxweynihii hore Maraykanka haddana ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in dalka laga soo saaro Soomaaliya 700 oo askari oo Maraykan oo ku sugnaa gudaha Soomaaliya, isagoo marmarsiyo ka dhiganayay rabitaan ah in markaasi la soo afjaro dagaalka aan dhamaadka lahayn. hase yeeshee madaxweynihii hore Maraykanka Joe Biden ayaa go'aankaasi buriyay sanadkii 2021 wuxuuna dib u soo celiyay dalka boqolaal askari oo gacan siinaya ciidanka Soomaaliya. dowladda dhexe Soomaaliya ayaa ka cabsi qabta in dib u soo laabashada Trump isbedel uu ku yimaado siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, taasoo khatar geli karta taageerada muhiimka ah Soomaaliya. shaqaalaysiinta shirkaddan ayaa loo arkaa tallaabo ka hortag lagu xaqiijinayo sii socoshada kaalmaha militariga ee Maraykanka. waajibaadka shirkaddan waxaa ka mid ah u doodista sii socoshada kaalmada militariga ee Maraykanka, helitaanka dhaqaale lagu taageero ciidanka ammaanka Soomaaliya, xoojinta taageerada labada xisbi ee Maraykanka, dadaalada lagu xasilinayo Soomaaliya iyo qodobo kale oo waaweyn. xiriirka ay shirkaddan la leedahay hogaamiyaasha xisbiga Jamhuuriga ee Trump ayaa ah mid istiraatiiji marka la eego suurtagalnimada in xisbiga Jamhuurigu uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Maraykanka. taas ayaana ka dhigan go'aan loo cuskaday siday muujinayaan xogaha soo baxay. lama oga sida uu aqbali doono Trump codsiga Soomaaliya iyo go'aankan ku saabsan kirada shirkaddan, waxaana lagu qiimeey doonaa go'aankaasi midka ugu dambeeya. qodobkeena ugu dambeeya daawadayaal waxa xoogeysay tarxiilka Trump. 4,000 oo Soomaaliya ayaa ku jira liiska la soo bandhigay hadda. maamulka madaxweyne Trump ayaana dalka Maraykanka waxa uu shaaciyay 1,445,549 qof in loo soo masaafuri doono dalalkooda, waxaana ka mid noqon doona 4,090 qof oo Soomaaliya, halka dalka Honduras uu yahay midka ugu badan ee loo soo celi doono 261,000 oo qof oo muhaajiriin. fagaarayaasha dalka Maraykanka ayaa hadda waxa isku baacsanaya soo galootiga iyo ciidanka ammaanka Maraykanka, kuwaas oo loo xil saaray soo qabashada. arrintaas ayaa ka dhigan mid culeyskeeda leh marka dhinaca kale laga eego, waxaana wararkii ugu dambeeyay muujinayaan inay jiraan isku dayo Trump uu ku kordhinayo tirada muhaajiriinta. wejiga koobaad, wejiga labaad ilaa wejiga saddexaad, 3 fees ayaa loo sameeyay tarxiilitaankan, iyadoo la leeyahay wejiga koobaad waa 1,500,000 ku dhawaad oo ruux in la tarxiili doono. Soomaalida ku dhaqan dalka Maraykanka ayaana walaac ka muujinaya go'aankan qallafsan oo bilowday dhaqangelintiisa, taasoo la leeyahay booliiska iyo ciidanka militariga iyo kuwa sirdoonka ayaa dhammaantood loo adeegsanaya arrintan. waana go'aan marka dhinaca kale laga eego suurtagal ka dhigaya inay isbedelo yimaadaan. almuhiim wixii ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal.